بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد magacayga waxaa la jaamac xasan khaliif waxaan ka mid ahay joogta Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee sidaa ma taqaan ayaan ka mid ahay qurba joogta ah waxaan rabaa marka koowaad inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto aan salaamo salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiiyo annaga oo runtii muujinayna dareenka ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada haysata inuu ilaahay ka kor qaado ummad Soomaaliyeed oo dawlad leh oo cizi leh oo sharaf leh ilaahay soo celiyo dadka Soomaaliyeedna ilaahay ma taqaanaa heshiis dhexdooda ka abuuro midda labaad rabo inaan marka maanta ka hadla waxa weeye waxyaabo badan baa dhacay oo Soomaaliya ka dhacay dagaal sokeeye laga soo bilaabo taa baan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo ummadda Soomaaliyeed sida xal ku jiro anigu ay la tahay iyo waxyaabaha dhacayo oo mudan ummadda in looga digo ugu horeyntii dagaalkii sokeeye ummadda Soomaaliyeed oo haysata dhibaatooyin ha jireen baa dagaal sokeeye dhacay waxaa soo baxay dad badan oo qowleysata oo dagaalyahamo la yiraahdo ummadii Soomaaliyeed bay kala qaybiyeen oo googooyeen ka bacdina waxay ku heleen magac iyo maskab iyo sharaf dadkii Soomaaliyeed ee magaalooyinka joogana waa qaxeen badadoodii wax dhintay iyo wax qaxay bay noqdeen maantana waa la og yahay oo wax dib loogu laabto maaha marxaladihii la soo maray baan rabaa inaan wax yar ka taabto iyo sida xalku yahay wixii hawl ee la soo maray dagaal sokeeye qabiilba qabiil laayay waar loo dhafada badan soo bixeen gobolba gaar isu taagay waxaa ka dambeeyay dhibaatooyin fara badan oo ka soo bilaabmay ilaa shirkii carta dhibaatooyinka waxyaabihii laga dhaxlay waxaad moodaa dad badan inayan ama u muuqanin ama ayan ka fiirsan waxa ka imaan kara marka taasaan rabaa inaan wax yar ka idhaha ugu horeyntii Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa marxalad aad iyo aad u xun waxay ku jirtaa marxalad dagaal maalin walba dad Soomaaliyeed baa lagu leynayaa magaalooyinka gabdho Soomaaliyeed iyo carruur Soomaaliyeed baa bam lagu qarxinayaa oo ma taqaana altare lagu garaacayaa waxyaabaha ugu horeeyana waxa weeye oo aan rabno ummadda Soomaalida inaan u sheegno marka ugu horeysa ummadii yahay dadka wadankan idinka iska leh waxaa tihiin ummad kali ah ummad hal qabiil ah tii qabiilku Soomaalida magaceedu waa qabiil waxaan akhriyay kutub la qoray qarnigii 16aad oo la yahay Futuuxul Xabash ummadda Soomaalida taariikhda ka waramaya iyo Axmed Gurey iyo dagaaladii East Africada qabiilka hadda inagu aynu u kala taaganahay laamaha u kala bixinay waxa la oran jiray qabiilka Soomaaliya kaliya waana soo gaaray anigu iyadoo qofka Soomaaliyeed ka yimid Raas Kamboni ilaa Raas Xafuun isagoo lugeynaya qof kasta Soomaaliyeed waa soo gaarnay waxaana qabaa wax xun wax fog maaha in la helo wax adagna maaha laakiin waxaa mudan in ummadda looga digo waxyaabaha dhacaya ayna ku khatalmanay inayn ku khatalmin number 1 waxaa la soo dhisay dawladda la yiraahdo TFG dawladda ku meel gaarka waxaa lagu soo dhisay Kenya dawladdii la soo dhisay baarlamaanka lahayd ee qabiilka iyo 4.5 ka lagu qaybiyay wadankii waxay gelisay ixtilaal waxay gelisay wadankii waxay gelisay gumaysi cusub xilligii la dhisay ilaa intii uu ka tagay prime minister hore Geedi Soomaaliya waxba lagu leynayay dad baa lagu leynayay wadamo kale oo Soomaalida ay isku wanaagsaneen sida Ethiopia kala wadankii yimid dagaal jira hadeerto waxa jira prime minister cusub la yiraahdo Nuur Cadde wuxuu ka hadlay qorshe runtii aan soo dhaweynayo oo ah dib u heshiisiin waxaan rabaa marka arinta oo aan soo dhaweynayo wixii aan ka qaban karo inaan ka ilaahdo ummadda Soomaalidana la tuso in aynu hadaynu helo meel aan wax ka bilaabi karno haba yaraatee in la isugu tago oo aan qofna lagu sii dayn ninka odayga prime ministerka hadaladiisa waxa kamid ah inuu rabo dib u heshiisiin dawladdiisa iyo shacabka Soomaaliyeed iyo mucaaradka iyo kuwa dagaalamaya inuu la hadlo marka waxaan farayaa dadka Soomaaliyeed inay arinta runtii uma ihi anigu wakiil iyaga uma ihi laakiin nin Soomaaliyeed baan ahay
waxaanay dhibaya ummadda soomaaliya burburkeeda iyo dhibaatadeeda in laga shaqeeyo dib u heshiisiin guud baan qabaa inay muhiim tahay loo maro qolo kasta iyo xilli kasta iyo meel kasta oo loo mari karo aqoon-yahamiinta soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan differenceskooda joojiyaan danta gaarka ah maanta ma muuqato waxaan ku muuqan waxa weeye dadan Soomaaliya dawlad jirin dan ma yeelan karta gaara danta gaara meel la dhigo qabiilka laga gudbo qaran loo tallaabo dib baynu u dhacnay waa habsaanay dawladnimo la'aan baa ina haysa waxaad moodaa inaynu noqonay dad adduunka lagaga qoslo lagu maadaysto wixii xumaa iyo qaxootinimadii iyo wareegii iyo qabiilkii iyo googo-ii baa inala qurux badnaaday in laga tanaasulo oo laga gudbo waa faraya ummadda Soomaalida waxaan rabaa marka inaan dhowr qodob oo gaagaaban intaas hordhac weeye aan idhaahdo ummaddu qof kasta waxaad moodaa waxa inagu yar ogolaanshaha acceptance-ka aan idhaahdo in qofba qofka kale ixtiraamo oo isagoo uga gudbaya gool leh qof kasta oo Soomaaliyahow waxaad ogaataa awoodda aad yeelan karto inta ay leeg tahay mar walbana gobonnimada iyo dawladnimada si fudud lagu heli maayo wala socotaan dad badan baa u soo dhintay aynu ka shaqeyno baraarujinta waan jeclaa inaan ummadda Soomaalida u gudbiyo waxa aad ii dhibaya oo runtii aad ii dhiba oo aan aad uga xumaada Soomaalidu cadawgeeda inay noqonin waxaan fiirinayay ummadda Soomaalida hal wadan bay yiraahdaan waa cadow absolutely waa ku raacsanahay oo Ethiopia la yiraahdo Soomaalida in badan bay ishayeen laakiin cadow badan baa jira cadawga badan waxa weeye jahligu waa cadow ninka danta gaarka ah leh aan Soomaalida ku jirin waa cadow dawladaha kale waa cadow ee aan ummadda NGO-gu waa cadow marka cadow waxaynu kaga bixi karnaa inaynu gacmaha isqabsanno isu nimaadno la raadiyo waxa inaga maqan maxay inaga maqan la raadiyo baynu